oo haddana cagacad oo kaba aan xirnayn. Markii aan arkay waa la yaabay bacaan, markii aan dadka weydiiyeyna waxaa la igu yidhi dadkan dhaqankoodaasaan ah, way sooman yihiin. Markii ay sooman yihiin kaba ma xirtaan, sidoo kale xataa ma qabaystaan ayaa maqlay. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa idin salaam dhammaantiin meel walbo caalamka aad ka joogtaan, isku soo noqod wanaagsan. Hadday tahay markaad ku guuleysay channelkan kusoo dhawow, subscribe saaro, baleelka furo si muuqaalada aan soo dhiga halkan ay kuu soo gaaraan. Sidoo kalena muuqaalka like saar si dad badan aan u gaarno. Waa mahadsan tahay. Muuqaalka maanta waxaan kula wadaagayaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee Hindi aan kusoo arkay iyo sidoo kale taariikhii ugu dhacay qaar ka mid ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaan qayb kale aan ka sameeyo, sidoo kale commenti way ugula wadaagi kartaa. Insha Allah qayb kale ayaan ka soo sameyn doonaa. Markii ugu horreysay Hindi horta waxaa tagay 2018 markii aan tagayay runtii waxaa ka aaminsanaa in yani sawir ka duwan midkii aan ku arkay meesha ayaan haystay markii hore oo aan ka aaminsanaa. Markii inta aanan tagin ka hor waxaan islahaa Hindiyo dabcan waa wadan weyn, waxyaalo badan ayaan filayay inaan arko, laakiin markii aan tagay wax walba sidii aan filayay maysan noqonin. Sidoo kale meesha aan tagay waxay ahayd gobol oo la yiraahdo Telangana, caasimadiisana ay tahay Hyderabad. dabcan wadanka laguma qiimeyn karo kaliya hal gobol oo aad tagtay, laakiin wadanka sidiisa wuu qurux badan yahay, magaalooyin waaweyn, caasimado waaweyn ayuu leeyahay. laakiin gobolka aan tagay markii aan qiimeeyay yani sawirka Hindi aan ka haystay sawir ka duwan ayaan ka soo arkay meesha. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad isla haysid Hindi qurux badan, dad cadcad unbaad laga yaabaa inaad hadda Hindida aad ka aaminsantahay, laakiin sidoo kale waxaa jira Hindi madmadow ayaa jirto, oo sidoo kale qaar foolxun ayaa jiro oo dadku ma wada qurxana. waxyaabo kale waxaa jira markaan arkay aan la yaabay. waxyaabihii markii ugu horreysay aan tagay meesha aan la yaabay markaan arkay waxaa ka mid ah horta badankooda waxay u badan yihiin waxyaabo fani ah oo yacni wax ma ahan la yaab oo saa'id oo naxdin leh ma ahan. dabcan waa wax yacni adduunka bulsho walba dhaqan ay leedahay, dadku way kala duwan yihiin. wax adiga aad ogeed wadankaada kusoo aragtay iyo dhaqamadii wax ka duwanaa dabcan aad la kulmaysaa. marka waxaan arkay maalintii ugu horreysay horta famil dhan oo ka kooban hooyo, aabbo, caruurtoodii oo hal mooto wada saaran. mootada ma ahan bajaaj, ma ahan, waa mootada labada lug leh. hal famil oo hal mooto wada saaran ayaa arkaysa oo cunugoodii ugu yaraa xataa uu saaran yahay meesha. dabcan taas marka aragto waa la yaabaysaa, weliga hore umaadan arkin. sidoo kale khatarteedana way leedahay oo haddii shil ay galaan meeshaas wax ka badbaadaya way iska yar yihiin, sababtoo ah cunug yar oo saqiir ah, hooyadii, aabihii, caruurtii kale ugu yaraan. marka arrin xoogaa aan la yaabay ayay igu noqotay markaan arkay. sidoo kale waxyaabihii aan la yaabay ka mid ahaa markii aan arkay qof weyn oo labisan oo haddana cagacad oo kaba aan xirnayn. markii aan arkay waa la yaabay bacaan, markii aan dadka weydiiyeyna waxaa la igu yidhi dadkan dhaqankoodaasaan ah, way sooman yihiin. markii ay sooman yihiin kaba ma xirtaan, sidoo kale xataa ma qabaystaan ayaa maqlay. waana saas ay magaalada ku maraayeen, mootooyinka saasay ku wataan. eelaboorka xataa ku aragtid waa cagacadaan. dabcan ani ma aqaan qoraxda si ugu adkaystaan, laakiin saasay ku socdaan oo cagacadaan waa meel walbo. haddii mool aad ku arki lahayd, haddii magaalada aad ku arki lahayd, eelaboorka laftirkiisa dad cagacad oo labisan ayaa arkaysa oo dad waaweyn ah. taasna dabcan waa waxyaabaha ugu waaweyn ee aan la yaabay markii aan arkay ayay ahaayeen. sidoo kale waxyaabihii aan la yaabay waxaa ka mid ah markii aan cusbaa dadka inay ku weydiiyaan meesha aad ka imaaday, oo tusaale xaggee ka imaad, waddanka ka imaadaa lagu leeyahay. markii aad dhahday Soomaaliya maba yaqaanaanba. markii aad dhahday Afrikaan ka imaaday, Afrikada laftirkeeda ay qaar badankooda ay u maleeyaanba hal wadan. waa inaad u sharaxdaa markii aad dhahdaa Afrika wadan ma ahan, waa qaarad sida Asia oo kale. Soomaaliya sidoo kale waa wadan sida Hindiya oo kale ah. saas waaye mar walba oo dhahday Afrikaan ka imaaday, qaarka xataa Afrika yaqaano ma yaqaanaan wadamada Afrika. South Africa bas ay ka yaqaanaan Afrika dhan. qaarkoodna maba yaqaanaanba Afrika inay wadan tahay, inay qaarad tahay xataa ma ogo. marka waxyaaba aan la yaabay ayay ka mid ahaayeen in Afrika dhan ba xataa aysan garanaynin. dabcan lama dhihi karo taas waxaa keeni karto aqoon darro, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan weligood wadankooda ka bixinba, aysan arkinba wadan kale oo wadankooda aan ahayn. marka waa la yaabaysaa markii aad aragtid. sidoo kale waxyaabihii aan la yaabay waxaa ka mid ahaa baska caadiga oo dadka ay raacaan, oo baska oo shacabka ay raacaan way adag tahay, micnaha inaad raacdid way adag tahay. kow horta cariiri waaye. labo waxyaabaha ugu khatarta badana waxay tahay in baska aan lagu istaajinaynin meel aan boosteejo ahayn. waa inaad orod uga degtaa. haddii aad korayso xataa mararka qaar orod inaad ku kortaa laga yaabaa, laakiin mararka qaar waxaa macquul ah inaad caadi aad u kortid oo aad raacdid, laakiin marka aad ka degaysid ay meeshaas oo dhibka aad kala kulantid, sababtoo ah boosteejada basaska way kala fog yihiin.
waxaa laga yaabaa meeshii aad rabtay markii lasoo gaaro inaan lagu istaajininba oo xataa lagu qaboojininba. Marka waa inaad ka faa'iidaysataa hal mar oo jaanis yar aad heshay oo la yar qaboojiye ama jaam yar la galay oo kale inaad ka boodid. dadka badankooda shil way ku galaan. Dhalinyaro waxaa aqaana ayagoo ka deg leh oo intay orod oga degaan shil ku galay way jiraan. Marka khatarteeda way leedahay. Haddii Hindiya aad joogtid iska ilaali basaska dowladda ee aad raacaysid. Haddii aad damacdina orod oga degtid khatarteeda ayay leedahay, iska ilaali ayaan ku dhihi lahaa. Marka taasna waxyaabihi aan la yaabay ka mid ahayd, bas orod lagu kale orodna looga degaayo meel kale oo ay ka jirto ani hore uma arkin, laakiin Hindiya waa ku arkay. Sidoo kale ayadana waxaa jirtay arrin kale oo aan la yaabay ayadana markii aan cusbaa waxaan arkay nin naagu eg, dabcan ma isu ekeysiiyey ma aqaan mise waa laga roone waa fahmi waaye, laakiin nin waxaa arkaysaa naagu eg oo sida naagihii naasa leh oo caadi ah, qaab ahaantiisa xooggiisa iyo muuqiisa inuu nin yahay waa dareemaysaa, haddana sibay naag ugu dhex jirtaa ma aqaan. Markii aan arkay haddana way kugu soo leexani oo ma aragtay inay kula hadlaan isku dayayaan oo ay lacag isii ku dhahaan. Waa dad dhib badan markii aad cusub tahay oo kale way ku dhibayaan. Marka arrintaas haddii kugu dhacdo ama aad aragtid ama waddo uu kaaga hor imaado ha la hadlin, inaad ignore garaysid, isku day wax maaragtay hadal ahna ha la yeelan. Sidoo kale ayadana waxaa jirtay bajaajta caadiga oo magaalada ka shaqeyso. Bajaajta waxaa wada badanaa darawaliin aan gobolkaas ayada u dhalanayn qaarkood oo magaaladii ayada joogtay oo ayaga ay kaaga soo horeeyeen, ayaga Hindida ahaa ayaana garanaynin magaalada laftirkeeda. Marka qaarkood sida la ii sheegay gobollo kale ka imaadaan inay meeshan ka shaqeystaan ay u imaadaan, laakiin markii ugu horreysay oo aan tagay waa la yaabay sababtoo ah qof Hindi ah oo meel igee aad tiri oo aanan garanayn meesha ayada ahayd. Kaaga sii daranta kuma dhahayaan meeshan ma aqaan. Meeshaas ma u socotaa okay nabad ayuu ku leeyahay soo kor bajaaj saasuu ku wareejinaya, marba qof ayuu weydiinayaa, waa isku wareereysaan, luuqadii ma taqaanid, isma fahmaysaan, adigii waddanka ma kala taqaanid oo haddaa ka degtay meel kale aad ma taqaanid. Marka arrimaha ugu dhibka badan ayay ka mid tahay markii aad waddanka ku cusub tahay. Wareer badanna dadka ay kala kulmaan ardayda. Marka taas ayadana waxyaabihii aan kala kulmay meeshaas oo ugu wareerka badnaa ayay ka mid ahayd. Way ugu dhacday dabcan in aan soo raacay mooto meesha u socday ay geen weyday, i wareejisay, marba qof ay weydiiso, marba iska daba break badan oo dhaco, laakiin ugu dambeyn waa helnay meesha ayada u socday. Marka way dhacdaa taas laftirkeeda ayadana haddii kugu dhacdo iska dulqaado, iskana ilaali intii aad bajaaj ka maarmi kartid ama qof magaalada yaqaano wado oo ku geey meesha u socotid. Marka taasna waa arrin kale waxyaabihii aan la yaabay meesha aan kusoo arkay ka mid ahayd. Sidoo kale waxaa jiray ayadana waxyaabo aniga qaas ahaan igu dhacay oo markii magaalada ku cusubta qasab waxaa ah inaad jabtid oo ma aragtay oo wax inay ku qabsadaan aad la wareerto way dhacdaa badanaa. Marka waxyaabihii igu dhacay badanaa waxaa ka mid ah in maalin waxaa jirta meel xaafadaha oo ay kala yar fog yihiin, subaxa quraac waxaa yar ii geeyay xaafadaha ka mid ah oo maqaayad Soomaali ay ku taalo oo cunto Soomaali laga helo. maqaayadii aan subax ka soo quraacday yarkii aan isla soconay asaga igeeyay dabcan ma aqoonin. Markuu igeeyay maqaayadii aan ka soo quraacday kadib iska soo laabanay maalmo kale kadib ayaan damcay yarkii asaga waa isweynay dabcan bal kaliya inaan aado isku day oo ka soo quraaca meesha xilli horena way ahayd subaxnimo. Bes waxaa dhacday marka mootooyinkan bajaajta ah waxaa jirto mooto oo sharing ah oo la share gareeyay oo dad badan ay qaadanaysaa hal mar way ka raqiisanta kuwa kale lacag yar ay ka qaaday meesha u socotid ayay ku dhigay, yani laamigay ku dhigaysaa kuma geenaysa xaafadaada, dadka laamigay uga sii degdegayaan. Aniga kuma aqaano meeshii horey uma raacin, in la raaco baa la ii sheegay laakiin systemkeeda ma aqaan, inaan meeshan u socday ay geenaysay bay lahayd. Marka luqadina ma aqaani oo Hindiga ma aqoon, marka asagana English ma yaqaan. Meesha waa u sheegay kaliya laakiin meesha laba albaab ay leedahay, albaab koobaad iyo albaab afraad ay leedahay. Marka albaab gate number 4 meel la yiraahdo iyo gate number 1, marka ilaa ay intaas u dhaxay waa gate number 1 jiro, number 2, number 3, number 4. marka labada dhinac labada albaab ugu horeeyo 4ka iyo 1ka waa inta kala dhexdeeda ku jiraan. Marka meesha maqaayada ku taalo waa gate number 4 oo albaabka afraad waa. Ninkaana laamigi uu idagay oo ah gate number 1. Aniga ma aqaan meeshii meel aad ma aqaan, maqaayada meel ay iga jirto ma aqaan, waa isku wareerna ninkii. Warniyo waxaa yiri meeshan aniga meeshan ma aqaani, maqaayadaas geeyan ku iri ama gate number 4 geeyan ku iri maxay tahay meeshan. Hadda ninkii waa isfaham weynay, dadaan soo dhex galay waa nagu wareereen, wareer dheer kadib lacagtii inaan
kala tagaan damcay oo maadaama meesha uusan dhigin meesha aan rabay uusan igeenin waa iga yeeli waayey adi meesha buuq badan ka dhacay lacagtiisii baan siiyey sababtoo waddanka ma taqaanid dee dadkeena ma aftaqaanid ma dhaqan taqaanid dhibka weynkaasina kala kulantaa laga yaabaa marka inaa lacag yar dhib kale uu kuusoo gaaro waxaa ka fudud in aa iskaga tagtid marka lacagtii aan siiyey dadkaan weydiiyey meesha tilmaantay kadibna waxay ii sheegeen in dhankaas ay tahay meesha geed number 1 aan kasoo bilaabay ilaa ay 4 oo meesha ugu dambeysay aan soo socday ugu dambeyn anoo daalan oo rafaadsan ayaan maqaayadii tagay kadib waa soo quraacday xaafadiisaan kusoo laabtay marka taas waxyaabihii igu dhacay aniga ayadana way ka mid tahay marka sidoo kale haddana waxaa jirtay waxyaabihii igu dhacay ayagana waxaa ka mid ahaa ugu rafaadka badnaa habeen xilli kuleel ay ahayd marka mootooyin aan haysanay markaan ayada waa xoogaa magaalada la qabsaday oo waan bartay magaaladii dadkii waa fahmay mootaan wataa waxaa markaas magaalada waan la qabsaday oo waan bartay marka xilli kulul ahayd hawo banaanka in iska soo qaadano mootooyin iska kaxaysano oo xoogaa laamiyada marka qabow waaye banaanka habeenkii road trip la iska aadnay road tripka aadnay anigiyo meeshii mootooyin laba mootaan wadanay mootooyinkan aysan u wadanay oo jawi fiican ugu jirnay oo hawo iskaga qaadanayna oo iskaga soconay wadada mootadii aan watay ayaa banjartay cagta dambe ay ka banjartay xilliga ay ahayd meel noo dhaweed ma jirin oo taayirka laga bedeli karo sidoo kale ma aysan furnayn badankooda marka habeenkii maqribkii way xiraan ma 2 saac way xiraan kuwa maartay goomistayaasha oo mootooyinkii waxaas cagaha banjari waxa dhacday marka meeshii xaafadii marka aan fiirinay intay noo jirtana 13 kilomitir ay noo jirta 13 kilomitir mooto in riixa way adagtaa xoogaa marka mooto kale aan wadanay 4 qof camal ahayn oo iska badbedelnay midaan lamana kaxeyn karo mootadii mar cagta banjarto xoogaa yar waa kaxeyn kartaa laakiin taayirka markii uu falaad noqdo oo digsiga bas uu soo haro oo taayirka uu aad u baaba'o mootada ma soconayso si walbo shidaal ugu jiro ma soconayso marka saan ay u saabeynaysaa oo saan u leexleexanaysaa inay socoto way adag tahay marka waxaan damacnay marka inaan riixno sababtoo culayska ayda kortid ma kaxeyn kartid mootadii aan riixnay adiga ugu dambeyn saa usoo riixaynay aan soo bedelaynay xaafadda waan keenay marka habeenkaasna habeenadii iigu la yaab badnaa ayay ahayd dabcan wax kugu adkaado baa arkaysaa waddan markii aad ku cusub tahay qasab waxaa wax kugu adag caqabad ma waayeysid marka laakiin waxay faa'iido leedahay waxay tahay wax walba oo baratid wax walba kugu dhaco cashar ayaa ka baranaysaa marka cashar ka baranaysaa waa ku adkaanaysaa waddanka ku fahmaysaa marka laga maarmaan waaye in oo maaragtay ninka ragga uu jab soo maro wax maaragtay noloshiisu fiican waaye oo waxyaalo badan ayuu ka faa'iidaa waxaan filaa inaan idinku badiyay sheekada ila dheeraatay laakiin intaas in ka badan haddii aad rabtid in aan soo gudbiyo dhacdooyin kale oo ayagana jiray ama asxaabteyda ku dhacaan ama aniga laftirkeyga sababtoo meesha 4 sano camal aan joogo marka hal sheeko iyo 2 sheeko ma lagu soo koobi karo marka haddii aad rabtid inaan soo badiyo oo qayb kale aan ka sameeyo sidoo kale commentiga igula wadaag intaas ayaan ku ekeenayaa muuqaalkan inta haddaan soo gaartay waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka haddii aad ka heshay like saar asxaabtaada la share garee sidoo kale haddaa hindi aad joogtid oo ay jiraan waxyaabo aad la yaabtay oo aad aragtay qaybta commentiga ayadana nagula wadaag intaan ku kulmayna muuqaalka waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo